أنا قلت لهم قولي والله لا هدري لا أمان ولا والله أنا لان كاتم مكسان ولي هرم عرم أنا قوي توسي دلي shan iyo tobankii bishii lixaad 2017 oo ku beegneed 20kii bishii barakeysanad ee Ramadaan habeenimo Jimcaha ay soo galeysay iyadoo lagu jira salaada taraawiixda gudaha masjid ku yaala bariga Baydhabo oo lagu magacaabo masjidka Sheekh Aadan War-Iisho ayaa waxa soo galay Maxamed Aadan Cali oo magaciisa afgarashadu yahay Boorow ujeedkiisu waxa uu ahaa inuu nolosha dhaafiyay Sheekh Madeer Madgaab oo kamid ahaa culimada masjidka Sheekh Aadan War-Iisho Sheekh Madeer Madgaab waxa uu ku jiray safka hore ee imaamka kadib kaliya ma ahayn jamaacada masjidka waxa uu ahaa hagaha marka uu sahwiye akhrinta Quraanka Kariimka imaamka salaada dujinaya oo sida caadada salaada taraawiixda la mariyo juz kamid ah 30 juz habeenkiiba sheekha oo sujuudta ragcadii saddexaad ee salaada taraawiixda ayuu laba xabo madax kaga dhuftay Boorow dhawaqa rasaasta iyo dhiiga marxuum Sheekh Madeer oo gaaray rooga masjidka ayaa sababay argagax ardadii sheekha ee jamaacadii salaada ku jirtay iyadoo masjidku isku bedelay goob lagu kala cararay saaska ay ka qaadeen dhacdadaas darteed Sheekh Madeer ayaa ahaa macallin dugsi Quraan wadaad akhriya kutubta diiniga iyo aaba kafaala qaada laba reer uu lahaa 7 caruur ah oo ay dhaleen iyo waalidkiis inkastoo Maxamed Aadan Cali Boorow sameeyay xeelado badan uu kaga gambanayay gacmaha sharciga haddana waxa ciidamada amniga ay heleen xog lagu garan karo dhagarqabaha oo isla maalintii dambe laga qabtay suuqa Baydhabo uu ku dhex sameystay meherad yar uu ku hoos qariyay dhagarta uu maleegayo 16 bishii lixaad 2017 ay ciidamada amniga oo hay xogta dhagarqabaha ka soo qabteen suuqa Baydhabo waxa uu xilligaasi dhawaangal ku ahaa magaalada balse waxa lagu amray in uu weerar dilal ah fuliyo bisha barakeysan ee Ramadaan taasi oo ay caado ka dhigteen maleeshiyada al-shabaab inay daadiyaan dhiigga muslimiinta Soomaaliyeed 21 bishii lixaad ay maxkamadda darajada koowaad ku riday xukun dil ah bil gudaheeda ay rafcaan u qaateen maxkamadda sare waxayna dhageysiga dacwada kadib go'aanka ku raaceen maxkamadda darajada koowaad 5 bishii 7 2017 Boorow ayaa al-shabaab ku biiray 2008 waxa uu ka dagaalamay gobolada Baay iyo Bakool qayb kamid ah Bakool ayuu tababarkiisii ugu horeeyay ku qaatay waxa uu sidoo kale waqtigiisa dhagrida qayb kamid ah ku bixiyay gobolada Bari ee maamulka Puntland halkaas uu ka fulin jiray dil qorsheysan ugu dambeyntii maanta ayaa lagu fuliyay xukunkii dilka ah oo sida wadajirka marar kala duwan ugu xukumeen heerarka maxkamadda ciidamada sida uu sheegay warbaahinta Dhamma Muumin Xuseen Cabdullaahi ku xigeenka xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida taariikhdu markay ahayd 22 bishii lixaad 2017 waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah isla maalintii xukunka ku dhacay ayuu xukunsanuhu racfaan ka qaatay xukunka maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida taariikhdu markay ahayd 5 bishii 7 2017 maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxay mar kale u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay gacan ku dhiigle shabaab Maxamed Aadan Cali Boorow waxayna ku xukuntay dil toogasho ah kadib markii ay ku cadaatay in uu si bareer ah oo ula kac ah u dilay marxuum Sheekh Madeer Madgaab Caliyow maanta oo ay taariikhdu tahay 29 bisha 12 2018 waxa lagu fuliyay xukunsanaha xukunkii dilka ahaa wabillahi tawfiiq fagaaraha toogashada ka dhacday oo ahayd maaya fulka duuleedka Baydhabo ayaa waxa safaf u galay qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida waxa goobjoog ah gudoomiyaasha maxkamadda ciidamada xeer ilaalinta ciidamada wasiir ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed saraakiil ciidan maamulka dawladda hoose ee gobolka Baay iyo dadweyne kale Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka magaalada Baydhabo